buga soo kabashada magaalada Muqdisho burburkii dagaalada dalka iyo dadka muddo dheer saameeyay waxa ay meelo kamid ah magaalada u yeeleen muuqaal ka qurux badan kuwaas oo xusuusta qofka rumaysin kara horumarka dadku gacmahooda ku kasbadeen wadooyinka qaar ee caasimadda waxa ka muuqata bilic iyo dhismo cusub kuwaas oo ka sokow dadweynaha gartay inay dalkooda dhistaan ay horay u soo caawiyeen dawlado ay ugu horeyso Turkiga oo Soomaaliya u muujiyay saaxiibtinimo dhow Muqdisho waa halka ugu badan ee uu dhaqaaluhu ka soo galo dawladda Soomaaliya waana magaalada dusha u ridatay inay gudato waajibka dawladnimo ee dalka Soomaaliya waxa ku yaala xarumaha ugu waaweyn ee looga adeego nidaamka dawliga ee dalka dadka magaalada ku nool waxa ay bixiyaan canshuur si ay ugu caawiyaan nidaamka dawliga in uu si hufan ugu shaqeeyo iyagoo aan si buuxda u helin xuquuqda ka dhalata dhaqaalaha ay bixiyaan nolosha bulshada lagana dhowro dawladaha inkastoo adeegyadani aysan weli si rasmi ah dawladihii soo maray dalka u xaqiijin haddana badankood dadku waa ay iibsadaan si aanay uga harin nolosha maalinlaha ah qashinka u badan bacaha waa muuqaal dilaha magaalooyinka ku yaala Soomaaliya oo ay Muqdishona ku jirto muwaadiniinta bixiya canshuurta ee ku nool magaaladan xitaa ma helaan adeega nadaafadda oo waa ay iibsadaan sida ay Universal TV u xaqiijisay haweeneydan oo ku nool caasimadda canshuur hadaan jirin dawladnimo jirto canshuurta waajib waa inaan bixino laakiin waxa loo baahan yahay in canshuurtaas aan bixinayno aan ilmaheena aan ku helnaa iskool lacag la'aan ah isbitaal lacag la'aan ah aan geysano ilmaha caawa hadii maanta cunug yar haduu dhibaato ku dhaco isbitaal waxaan geynaynaa oo lacag ah isbitaal kale ma haysano marka waa u baahanahay nadaafadda aad iyo aad aan ugu liidanaa hadda lacag ayaan hor waxaan la yiri xaafadaha la soo galay geedaha saade meesha lagu buufiyo meeshaana lagu buufiyo eeko waxay dhaheen lacag ayaan rabnaa inaad bixisiin wiim aan qashinkan anaga qaadayno dadka qaar waa awoodaan dadna ma awoodo qaar waxay dhaheen hadiibaysin $6 bac ayaan ila keenayaa dadka $10 waxay loo keenayaa caag ayaa loo keenayaa anaga ma baan diidanin waa iska bixin lahayn laakiin dad waxa jira oo duruuf ahaan aan dhiibi karin oo waxba haysanin ayaa jirto oon awoodin oo hadda habeenkii intay ilmahaas yar halka waqti loo karinaayo ayaa jirto waxa la isweydiin karaa waxa ay tahay xuquuqda canshuur bixiyuhu uu ku leeyahay dawladda hoose canshuur bixiyaashu waxay xaq u leeyihiin badilkooda inay helaan wixii ay bixiyaan بدلkeeda inay helaan dawlad la'aan lama noolaan karo dawladana waxay ku noolaan kartaa in canshuur la bixiyo marka canshuur la siiyo dawladda waa in muwaadinka helaa xuquuqihii uu uga baahnaa dawladda oo dhan in wax loo waayo adeegga dawladda u qaban lahayd oo dhan ay ka mid tahay amniga oo ku sheegay ay ka mid tahay jidadka la mari lahaa oo ka mid yahay waxbarashadii oo ka mid yahay mataqaana aqoonsiga dawladnimada laftiisa muwaadinnimadeeda inay difaacdo qofkan in uu difaaco inuu muwaadin yahay oo ajnabi iyo cid ku xad gudbi karta aysan jirin waxa uu keeni kara qofkan bixinta canshuurta uu bixiyo dhowr meelood oo kamid ah magaaladan waxa ku yaala goobo biyaha kaydiya kuwaas oo marka aad dul tagto muuqaal ahaan aad isu bedelay muddada ay ku jireen awgeed waxa ay halis ku hayaan nolosha dadka ku agnool hadaba waa kuwa cudurrada ka dhalan kara biyahaasi isbedelay marka halista jirto waxa weeye marka in cudurkii daacun caloolaha uu halis ku yahay muxuu ahayto magaalada Muqdisho oo goobo badan uu ka jiro marka loo baahan yahay marka in la xoojiyo dhanka nadaafadda aad loo xoojiyo gaar ahaan nadaafadda deegaanada oo degmooyinka kala duwan oo qaarkood yaani nadaafad darro ay ka muuqato iyo qashin badan iyo bulaacado ama biyo yaani dhax fadhiya kuwaas oo ah kuwa yaani aad u sahlaya faafidda yaani cudurka Universal TV waxa ay weydiisay sababta uu maamulka uu arrinkaasi indhaha uga laabanayo dabcan arinta bacda dhibaatada magaalada ay ku hayso iyo guud ahaanba waa la soconaa magaalada dabayl badan ah magaaladana magaalo maaragtay cimiladeeda aad iyo aad u fiican tahay ah dabcan bacaha lagama soo saarin wax oo sharci ah iyo wax shuruud wali lagama soo saarin dabcan waa la socotaa meelahaas magaalada Muqdisho waxay ku yaaleen meelo badan dabcan siigaala hadii aad aragto way ku taala fagax way ku taala bonder way ku taala
number 4 way ku taala wardhiigle way ku taala meel badan oo xajira saasoo kale biyaha meel loogu talagal oo aan qodna annaga oo Turkida ay naga caawisay iyo meel biyaha caadiga ay fadhiistaan dabcan meelaha degmada Boondheer irideeda ku taalo kale dabcan howlaheeda maalmahan waa bilawnay shaqooyinkana way socotaa insha Allah waxaan rajaynaynaa ayadana ma aragtay inay maalmaha soo socda biyaas laga bixin doono haddii muwaadiniinta canshuurta bixiya ay waajib ku noqotay in uu iibsado adeegii beddelka canshuurta uu ku heli lahaa muxuu yahay cawaaqibka ka dhalan kara arrinkaasi sida ay u tahay in muwaadinka haddii canshuurta uu bixi waayo dembi u tahay ay adeeg uu ka rabay haddii laga iibinayna ay dembi u noqonaysaa muwaadinka sidaan kugu soo sheegay wax jira xuquuq iyo waajibaad mar walba isdaba socod muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay in wax waajib asaga saar qofka ganacsado dawladda hoose iyo dawladda dhexe canshuur wada qaadaan waa laba canshuur oo kala duwan ay qaadaan canshuur maalmeedka joogtada ah ee la qaado ee dawladda hoose ay qaadayso waxay ugu qabanaysaa adeegii dawladda hoose laga rabay adeegii waajibka ku ahaa hadday rabto inay ka iibiso caqli maaha ma shaqaynayso dawladda hoose ayay waajib ku tahay in adeegyada nadaafadda ee goobahan oo kale wax ay ka qabato si caafimaadka dadka ku nool caasimadda u hagaago nuure maxamed cali Universal TV Muqdisho